waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay xaafadda Belfel ee magaalada Cape Town kulan lagu cambaareynayay dilkii dhawaan loogu geystay magaalada Garowe caalimka weyn ee Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax oo ay soo agaasimeen culimo diinka waxaa ka soo qayb galay ganacsato dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town waxaa ugu horeyn ka hadlay goobtaasi Sheekh Cabdullaahi Ibraahim iyo Sheekh Xuseen Shibis iyo Sheekh Maxamuud Adar walaalayaal marka koobaad tacaasida faraha badan meel badan laga kala dirayaa tacaasiyadana anaguna ku dareynaa taasoo ku saabsan geerida xanuunka badneed oo ku timid sheekha la sheegay oo Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax raximahullahu tacaala sheekhaas oo runtii kamid ahaa culimada Soomaaliyeed ee ummadda fadliga badan ku lahayd ee muddada dheer ka soo shaqeynaysay islaaxintooda ee dacwada ku dhex waday muddada aadka u dheer xumaantana uga digaysay sheekheena Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax Ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto hana geli jannadiisa firdawsi ahayd marka waxaa qaarkood ka hadasho dadku waa lagu baqdin gelin waxa lagu leeyahay niihow aamus lafahaaga u cabso taasi laakiin sax ma aha sida kuwa culimada dilaya isku biimeeyeen oo ay ku dhiiradeen waa in la helaa dad iyagu dhiirada ay ka hortaga falkaas waa laga maarmaana dad dhiigii ummadda muslimka xalaashaday gaar ahaan indhaha ummadda oo culimada ah dhiigooda xalaashaday waxaa laga maarmaana afka in lagu ballaariyo iyo dadkii shuyuukhda u ahaa dadkan iyo dadkii waalidka dhinaca dacwada uu ahaa intaba sidaa daraaddeed marka in aan kana tacsiyeyno haddana aan xusno barnaamijka isaga aan sheegno xumaantiisa iyo foolxumadiisa si intii ka dambeysay inay cambaarayn ugu noqoto inta ku fikiraysana ay digniin ugu noqoto sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii ka soo qayb galay kulankaasi oo tacsi tiiraanyale u diray ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan rabbi naxariis janna ka waraabiyo sheeqina Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax jannadii firdawsi Ilaahay ka waraabiyo runaantii sheekhu wuxuu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed oo ka dhintay awalan waxaan ka tacsiyeynaynaa geerida naxdinta lahayd ee ku timid sheekhuna Sheekh Cabduqaadir Nuur Faarax Maxamed Axmed Siyaad Somsa TV Koonfur Afrika